ولا ليال نفتيديتينا وحاول الدردار ما يا تقوى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أن أبوري وأدون كان كيني كدبنا مسلمين نقدي ولا ليال الله سبحانه وتعالى كون كان يو أبوري كون كان مكو أبوري كدبنا بنا آدم بو كبيري وكو أبوري وتيو نوش شيء الله سبحانه وتعالى إنه كيري آدم عليه السلام iyo shaydaankii waswaasiyay qulna ihbitu minha jamii'a warlamaantiina jannada ka daad oo ka dhaadhacayo Allah subhanahu wa ta'ala yiri markay yimaadeen adduunka shaydaankii waatu Allah subhanahu wa ta'ala markii horeba ku caasiyay آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله سبحانه وتعالى أي أطوت كيني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله ربي نفتنا أيام ظلمنا أنا قردرا الله نودن بداف قوانين الله سبحانه وتعالى سمي آدم عليه السلام أحكام بالسي يا نبي يدي دنبو كدنبي إلى نبينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه لسوقارين شريعة iyo ahkaantaasi waa ahkaanta Allah subhanahu wa ta'ala oo ugu talagalay dadku inay ku dhaqmaan waayo asagaana abuuray Allah subhanahu wa ta'ala asaga yaqaan waxa noo fiican iyo waxa noo xun Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u warwadada toosan waa taad raaca haday tahay cibaado haday tahay akhlaaq haday tahay wanaag haday tahay wax kale haday tahay muamala haday tahay bay' بيع مشتر wax kasto kitaabka ay ku sigan yihiin oo quraanka ah wax kasto aad rabtay tilaabo kasta aad qaadayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo soo dejiyay kitaab kadibna rasuul buu noo soo diray xuduud buu sameeyay Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullah fala ta'taduha hudud Allah subhanahu wa ta'ala wa taas ha garab marina ha dhaafina oo waxa ku taadinaya Allah subhanahu wa ta'ala yiri sida daraadeed hadii anagu aan ka leexano jidka toosan hadii aan ka leexano sida Allah subhanahu wa ta'ala na abuurtay uu doonay inaanu u noolaano hadii aanu ka leexano wadadaasi oo wada kale aanu qaano xumaano dhan baa nagu dhacay dhibaato dhan baa nagu dhacayso muur baan la kulmeena waana midana haysato maanta arinka dhacay maalin dhaxdaas gabar yar in la kufsado oo hadana la dilo Allah ma xariistay ma aha arinta ugu horeysa ma aha hadda oo dhacda dhacdooyin badan baa ka horeeyay gabar sidaas oo kale oo yar hadan la qufsado la dilay gabar kale sidaas oo ugu dhacday dhacdooyinkan waxay u soo badanayaan waxa weeye wadada Allah subhanahu wa ta'ala ayaa laga leexday kuwa mujrimiinta ah oo xumaha faafiya oo waxyaabaha oo kale ku kacaya hadii shariicada loo bandhigin hadii joogsan maayaan إلهي سبحانه وتعالى حكم كيسنا وعديها قف ديلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قصاصتا قف ديلا إن لو قصاصه نول بايدي وسقم بو الله سبحانه وتعالى ليه يا الله الله يا كو عقلك وصاحبك يا الله الله يا معنى هو حويه هدي قف وديله أو السجن اللي ديله بري كي واحد ديلا يدتكو لمبا وحويه إيغناي marka la sulbiyo oo banaanka lagu dilo dadka arkayo qof dambo qof dilay malaha qof sigana dilka waxba kama yareysto waayo waa xiraaba sida culimada ay yiraahdeen waa qof Allah subhanahu wa ta'ala la dagaalamayo waa qof fasaad faafinayo إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم كو الله سبحانه وتعالى لدقى الله معي جزوه ذا محوية إن لدله قبلها كفسنايو ددك الدلايو حمانو دد سمينايو فساد ككفا فينا إن لدله أما للصلبيو geed lagu xiro ama waxa weeye gacanta iyo lugta si isdhaaf ah loo gooyo ama laga musaafiriyo dalka uu joogo dhanba waayo khizibu Allah subhanahu wa ta'ala usmadu leeyahay yani qofka gabar yar oo kufsanayo qofka xumaanta meeshu ka gaaray in la dilo way xeer jajab iyo odaashu waxaan leenahay xeer jajab iyo laba walaalo ah iyo laba waxa way dhinacaha laga eega iyo wax taa ee tarayso malaha
maxay ku taraysaa man dhalinyaro ah oo waxa oo kala ku kacay in la yiraahdo hala daayo marka waqtigan ama kuwan kale hala cafiyo odayaasha ay soo istaagaan odayaasha u istaagaan dhalinyarada xumaanta sameynaya gabdhaha kufsana yawmal qiyaama adiguna waa la mid tahay qofka dulmiga galay aad dulmigaas gardaro ula istaagaysid aan leedahay waxa way laga joojiyo culimadu waxaan leenahay dalka joogo ayaga culimo ah waxyaabahan oo kale in dadka laga qabto oo tilaabooyin waxa way fiican laga qaado ayaa loo baahan yahay oo waliba si adag ah arinkan waxa way dadka looga qabto walaalayaal إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض كواس وحوا يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا إلا الدلوي كفسيجا وضمن إندي أو كل وضع أركتر يوحى كدعي يعني وحى كدعي آد وحوا أفضل حمضان غربية أما مريكا كي إنجليز كمان تيجي ملايان إن عدالة لكينا يو حقوق ذا بين آدم كي حقوق ذا أيها أقدر مكلا أجريبك ama kufsiga marka la eego dilka marka waxyaabo badan la eega tariiqooda hadaan raacno taasa noo dambaysa anaga waxaan lagu ma yaqaan dad muslimiin ah baan ahaan oo wanaagsan oo dhaqamadan oo kale aan lahayn inaan iska ilaalina u baahanahay fariinta labaad waxa ku socota gabdhaha laakiin intaan u gudbin raga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay inay difaacaan gabdhaha oo waxa way gabdhuhu ay ilaaliyaan الرجال قوامون على النساء أو أي حفظيان أو وحوي أي كورهيان معها إن كفصلان أم أي دلان معها حلو باهي إن إلاليان ونحرستان استوصوا بالنساء خيرا خيركم لأهله خيركم لأهله الله سبحانه وتعالى وحنا قلت لقرأ الرقا إن ضمرك إلالينا خيركم لأهلي قفك إذا هو نكسب والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان أهل كيس هو نكسب دمرك خير أو لدر دارما وناقة وحوي أموجية النبي صلى الله عليه وسلم عليه صوت صفر أيا وحوي أنجش حوجا نشيد قاضي حوجا وهاي سي وحوي أورك يا سفرك مكاسي وحوي حوله حوجا بودين أنجش وحوي رفقا بالقوارير قوارير توارلضة وترتيبي دمرك قدال صارم taa waxa looga baahan yahay nin kastoo dhalinyaro ah nin kastoo waalid ah in gabdhaha la ilaaliyo oo la xifdiyo oo loo naxariisto dumarkuna waxaan leenahay is ilaaliya طريقه الله سبحانه وتعالى raaca xijaabkiina qaata oo is astura oo nin aadan garanaynin guri ama hotel ha ugu tagin dibka waxa ka imaanay waxa weeye gabadhu nin bee la hadlaysa la chat garanaysa kadib wuxuu leeyahay cashaan ku soo siinaya ayna keen kadib waa israacayaan ninkan aad gaariga u koraysid miyaad garanaysaa miyaad ogtahay meesha ku wado miyaad ogtahay wuxuu kugu sameyn doono marka is ilaaliya gabdhaha oo waxa way iska ilaaliya waxyaabaha oo kale ninaad garanayn qof aadan garanayn tariiqa Allah subhanahu wa ta'ala waxa weeye qofkii ku soo doono reerka ka soo doono reer kadibna mahram baa lagu dari qofkii rabo inuu kula sheekaysto wax dhibaato ah ma laha mahram ha ku raaco dhinac ha fadhiisto dhinac fariista waxa soo dhan waxa loo sameeyay gabadha in la ilaaliyo laga ilaaliyo kuwa ardaasha ah oo xumaanta doonaya diinta islaamka waa diin wanaagsan dhaqankeena asal u ah waxana dad muslimiin ah boqolkiiba boqol muslimiin ah laakiin waxa la isku dayayaa in la bedelo hadii la bedelayo see loo bedelayaa way ku guuleysan waayeen gaaladu dadkii ay kaxayeen inay wax ka bedelaan waa laga yaabaa inay wax ka bedelaan qaarna waa bedelmeen taas waa sunna kawniya weeye in dadkii markay tagaan wadamadaas oo kale ay ku dhaqmaan qaarkoodna ay ku dhashaan in akhlaaqdooda iyo diintooda wax iska bedelayso laakiin maanta waxa la soo celiyay dad ku soo noqonaya dalkii baarlamaanka ku soo noqonaya oo oranayo waxa way sharcigaas waa in la keenaa sharcigaas waa in laga hadlaa asagii qofka muusan garanay marka hore sharciga waa wax loo soo meeriyay ama lacagaha lagu siiyo ama wax kale asaga si kale ha ugu qanco sharciga galmadan ka hadlaynaa sharciga qowmuluudkan ka hadlaynaa akhlaaq aanan lahayn diin aanan lahayn dhaqan aanan lahayn ayaa la rabaa dadka in si qasab ah loo geliyo waxaan aad u mahad celinaynaa dadka arinka hor istaagay oo waxa way dadka ka joojiyay laakiin tan waa tijaabo waa lagu fiirinayaa ma soo diideen haye ayadoo si kala hadana way cadowga asaga seexamay ma jiifo
wuxuu u taagan yahay mar kastaba dadkan see u bedelaa qaar baa waxay soo gelinayaan sawiro muqdisho say ahayd 1960kii 1970kii nabadda iyo dadka say ahayn sawiro waxaa la tusayaa dadka gabdho xijaab aan lahayn waxaa la tusayaa gabdho garan qabo waxaa la saas aan ahayn marka hore kuwa noo imaaday oo wadaad isku sheegay gabdhihii xijaab iyo dulmi iyo wax ku sameeyeen warwaagaas waa isticmaalkii kadib talyaanigii kadib weeye ay ma aha wax hore ma aha dadka soo ahaayeen isticmaalkeeda ku dhaw muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ku dhacay ayaa dadka sidaa ka dhigay laakiin dadka waxay ahaayeen wax dad arinka ka horeeyo dadku muslimiin bay ahaayeen beledkan oo qarni afriqiya geeska afrika waa beled culimo ahaayeen xufaad bay ahaayeen dad waxa cilmi xadiidka looga dambeeyo culimadii hore 200 sano ka hor 1000 sano ka hor dawladii ajuuraan 200 sano ka hor markii la dagaalamaysay Portugiiska Mombasa ka yimid oo dib loo celiyay ilaa Mombasa ay gaarsiiyeen ayagoo kaashanay dawladii waagaas taagneed dawladda Uthmaaniya ah waa goorma waa hore dadku muslimiin bay ahayn xijaabkii waa jiray khayr baa jiray wanaag baa jiray dad baa hadda soo noqday isticmaalkii wali maskaxda ugu jiro wali waxa uu haystaa dhaqanka galbeedka ah inuu yahay kan fiican shariicada islaamka iyo diinta islaamka oo Allah subhanahu wa ta'ala waxa way ku adoonsadayna ka tagayo يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وحدون ولو كره المشركون مشركون سيده أكره سداني وحدون إن الله سبحانه وتعالى نور كيسا أي دميان دونها والله ليال إلهي سبحانه وتعالى كبقنا حمانت أيو حيابها دعاينا أن وحويك هر استاغنو دينتنا إيو طريق حقنا أن وحوي أنقنو وطريق عقلي سليم كأه وكينايو إيو فطرة وناكسن أصل قفك بين آدمك فطرة الله سبحانه وتعالى وأبوري فطرة أصلا وفطرة الدين تحقق اهدنا الصراط المستقيم وصلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم